cusub oo la ii keeno tolka iyo darisku ii keenay waaye xalay iyo shalay ay gubteen guriga iyo alaabta u dhaxtaal ayaa laga gubayaa cuntada laga daadinayaa ama wax looga darayaa albaabada kor looga xirayaa mararka qaarna waaba la soo tuuriyeynayaa waa musiibo waa mucjiso runtii waa arin muruga aad u weyn ku beertay qoyskan dhibaatadan ay haysato iyo sidoo kale dadka deriska ah oo axwaashooda ka warqaba cabdinaasir sheeqow axmed sheeqow waa aabaha cabdinaasir maxamed sheeqow dabcan waa aabaha qoyskan hadda waxa uu dul taagan yahay joodariyaal iyo sariire iyo alaabtii gurigan taalay oo gubanaysa arintan markii ugu horreysay ay kugu bilaabatay goormee bishii dhamaatay 17 ilaa markaana waxa waa saas ii daba taagnaayeen raashinka waa laga daadinaa joodariyaashii alaabta waa laga gubaa gurigii aan u guuro kale sidoo kale waayo dhowr guriga alaabta iga gubatay waxa hadda hoos yaala ay wax yar oo darisku markaan gurigan ku soo laabtay darisku ii soo aruuriyo waaye ayaguna waa gubteen dhaxdan ka fadhiyaa waa dinshaa ilmaha waa laga xirxirayaa markii laga xirxirayaa qoorta looga xirayaa guriga dhagaxa ku soo dhacayda albaabada waa laga xiranayaa raashinka dabka aan saarto kobaa la iga ridayaa waa aad baan ugu kululaaday waqti badanna ayaan waa daba taagnaayeen marka alxamdulillah rabbil caalamiin marka inta runtii musiibadan ay ku haysatay ilaa intee guri baad ka guurtay waa gurigii karay ugu qabatay waa ka guuray mid kale aan tagay waa wixii ku gubtay guri kale waxaan tagay anakoo socona cidu ay leedahay anakoo waxba wadan ayagii haddana alaabtii ka gubatay alaabtii ay haysteen haddana ayagii ka gubatay waa soo noqday gurigeygii iska imid alxamdulillah rabbil caalamiin wixii yaroo ii haray ama ii soo aruuriyay haddana iga gubatay qoys Soomaaliyeed oo degan degmada Huriwaa ee gobolka Banaadir oo aan aqalkooda ku booqanay ayaa sheeganaya intaas oo dhibaato ah oo nasiib darro cid ku sameynaysa aysan ku sheegi karin waa Aaba Cabdinaasir Axmed Sheekhow iyo xaaskiisa Sacdiye Cabdullaahi Cibaar iyo 6 caruur oo iska dhaleen waxa ay haysato mushkiladan waxaana xusid mudan in gurigii saddexaad oo ay degayaan ay tahay inta ay dhibaatadan daba socoto meel kasta oo ay tagaana aysan ka harin kow baada gurigaas jikadaas oo ka bilaawday dabku ka bacdi waxa la igu xijiyay joodariyaashii oo laga gubaayo maxaa tiraahdaa tuuriyooyin ku soo dhacaya maxaa tiraahdaa raashinkii oo la daadaashay koba la iiga riday marka alxamdulillah shukri aradaas soo dhan u gubatay joodariyaashii gubteen dharkii gubteen ilaaha ma hadda iska leh rabbi subhanahu wa ta'ala ayaa keenay ilaahay cuntadii iyo wixii yani dhibaatada ay ka taagan tahay oo la idinka cunaayo la idinka daadinayo qoyska maxaa nolol u ah xagee wax ka heshaan alxamdulillah shukri dariska noo keenay wixii darisna la ah culimo diina quraanka noo aqriyayo taas marka dariska raalow adaa ku watay cuntada dariska idin keenayaan iyaga wax ma lagu darayaa mise tiina un baa la beegsanaya gurigaba hadii la keeno wax waa lagu daraa laakiin isla markaas cuntada noo bislaata waa iska cunno waxba ma dhiganaba alxamdulillah shukri mana qadno ilaaha ma hadda iska leh waa tan la dhigo ama fursad lagu helo marka ilaaha ma hadda iska leh waa nabad qabnaa markaan xoolo maalka hayo waxa jira kistaas oo waxa jirta culayska ilaahay hadda hal anu wax iga ma gaarsiin laakiin culayskaas xoog badan la waxa ay haystaa joodariyaasha alaabta dhan gubahaysa gurgaan isxiraayo hadda 3 jeer ka gurga waa la igu qonfuray mar hore ana la kaga saaray marna gudaha ana la kaga saaray gabar qolaa la iiga xirtay alxamdulillah shukr ilaaha ma hadda iska leh intaasana la soo gudboonaa tan ka cabayna barnaamijka guriga ayay seexanayaan iyaga iyo caruurtooda muddo bil iyo dhowr iyo 10 cisho ah maadaama ay ka cabsi qabaan in iyagoo hurdo guriga lagu xiro kadibna lagu gubo dariska iyo qaraabada reerkan ayaa iyaguna dareemaya saameynta ay dhibaatadan leedahay waxa kaliya ee ay iyagu awoodaanna waa in ay baadka iyo biyaha ula soo ordaan marka cuntada laga daadiyo ama wax looga daro mararka qaarna waxa ay kala qayb qaataan daminta dabka la qabadsiinayo gurigooda iyagoo mooganayaal ah amaba hurda maxamed sheeqow waxa uu la dhashay cabdinaasir ninka runtii musiibadan ay haysato dabcan darisna waa leeyahay oo guriga wanaagsan ee degaya bal arintan yani culayskeeda waa dareeminaa ilaahay idinka saara ka war iyada si fiican arintan culayskeedu in muddo howlnahayay adugu bil iyo intii 10 habeen camal marka wuxuu ka bilowday markii hore guriyaha isxiray guriyada isxiraan badarka wala daadinay
kabacdi daba qaybtaasoo dhan leefay kabacdana jeegadaan ku dhejin hadda marka soo guriga isu xiray markii dambe daba bilowday dabka daba bilowday waliba baryahan dambe aad u sii daray waa la dami jiray hadda shalay ugu dambeeyay maanta waa roonay arrintan oo kale hore ugama aysan dhicin magaalada Muqdisho iyo koonfurta Soomaaliya balse waxaa jirtay in qoysas Soomaaliyeed oo ku noolaa gobolada waqooyi ee dalka ama Somaliland ay la kulmeen mushkilad caynkan oo kala ah waxaana xusid mudnayd in culimo dadkaasi u tagay ay u fasireen mushkiladaasi siyaabo kala gedisan maxamuud soo faysana warbaahinta qaranka Muqdisho.